واحد عادي بس عادي من عاوز الصراحة بس عادي حد من بلوزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلها وسيرة دولة بنتلاند. halkan maanta shirkan jiraayad waxaan ugu qabanaynaa inaan bulshada reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba la wadaagno sharaftii iyo magacii iyo guushii ka dhalatay shirweynihii wada tashiga Puntland ee 15 ilaa 17 bishii saddexaad ku qabsoomay caasimadda Puntland ee Garowe. run ahaantii waxaa keenaya in dowladda Puntland ay aad uga hadashay shirkaas waxa weeye farxadda la xiriidha shirweynahaas iyo sidoo u dhacay iyo guushii laga gaaray. waxaad la socotaan shirweynaha waxaa ka soo qayb galay qiyaastii 1800 qof oo ku salaysan dadkii ay ku xusnaa warqaddii ama war-saxaafadeedkii 7 bishii Febraayo ka soo baxay Boosaaso ee ahaa qaybaha kala duwan lagu casumayay. shirkaas oo muddada 3 beri oo socday ay ka socotay doodo iyo falanqayn dheer oo ku salaysan qodobadiisa. waxaynu wada ognahay dadka 1800 gaaraya inay ka soo saareen shirkaas oo ka soo baxay warmurtiyeedkaas oo qodobo aad iyo aad muhiimad ugu leh reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba uu ka soo baxay. waxaan loo soconnaa markii warmurtiyeedkaas uu soo baxay in dadka reer Puntland ee joogay goobta oo 1800 kor u dhaafayay ay ku soo dhaweeyeen sacab iyo xamaasad iyo farxad ay ku soo dhaweeyeen. waxaan la soconnaa dadka reer Puntland meelay joogeenba inay ku soo dhaweeyeen hambalyo iyo soo dhaweyn wixii ka soo baxay shirkaas. waxaan la soconnaa ummadda Soomaaliyeed oo aad u sugaysay natiijada shirweynaha wada tashiga Puntland oo runtii ahaa mid aad iyo aad muhiim u ah Soomaaliya oo dhan inay aad u soo dhaweeyaan ayaguna oo maantay ay u arkeen Puntland inay qaadatay doorkii laga filayay hadday ahaan lahayd arrimaheeda gudaha iyo hadday ahaan lahayd arrimaha Soomaaliya quseeyay intaba. waxaan haddaba rabaa inaan xuso dhowr qodob oo la xiriira guulahaas la gaaray ee shirka ka dhashay. markii dadka 1800 kor u dhaafaya iyo guud ahaan ummadda reer Puntland ay soo dhaweeyeen wixii ka soo baxay shirkaas. waxaad la socotaan khudbaddii xiritaanka shirka madaxweynaha Puntland wuxuu ballan qaaday asagoo ku hadlaya afka xukuumadda in sida ay yihiin qodobadaas haddii lahaydna loo ballan qaadayo in loo fuliyo maadaama qodobadu ay u soo jeedinayeen dowladda Puntland inay fuliso qodobadii ka soo baxay shirka. waxaa raacay in shirkii khamiista golaha wasiirada ee halkan ka dhacay Garowe ay ka soo qayb galeen guddoomiyaasha gobollada Puntland iyo guddoomiyaasha degmooyinka Puntland. xukuumadda oo isku dhan oo gobolladii iyo degmooyinkii iyo golihii wasiirada leh madaxdiina ay joogaan madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii waxaa gacanta loo taagay oo la isla qaatay in talooyinka iyo go-aanada ka soo baxay shirweynaha oo dadka reer Puntland ay u soo jeediyeen xukuumaddu inay fuliso ay xukuumaddu qaado mas-uuliyaddaas in si dhammaystiran looga howlgalo in loo fuliyo haddii lahayn. taas waxay muujinaysaa kana turjumaysaa in xukuumaddu ay diyaar u tahay in taladii ka dhalatay shirweynahaas haddii lahayn intii karaana sideeda loo fuliyo. waxaan rabaa inaan xuso in ayadana beesha caalamka oo aynu nahay dad aynu saaxiiba nahay dhinacyo badan
aynu ka helay fariimo aad iyo aada u bogaadinaya una soo dhaweynaya natiijadii iyo qodobadii ka soo baxay shirkaas iyo weliba sida dadka reer puntland ay u soo dhaweeyeen oo ay isugu raaceen ummadda soomaaliyeedna ayaguna u soo dhaweeyeen. waxaan kaloo rabaa inaan dul istaago ujeeddadii shirkaas ma ahayn shir ay ku wada hadlayeen dowladda federaalka wafdi ka socda iyo dowladda puntland, laakiin wuxuu ahaa shirweyne wada tashi oo dadka reer puntland ay lahaayeen. dadkii ka soo qayb galayna ma jirin cid si gaar ah loogu casumay inay iyadu qorshayaal iyo ajendayaal ay leedahay ay keento, laakiin waxay ahaayeen hadday tahay golayaasha puntland, hadday tahay siyaasiyiinta puntland, hadday tahay waxgaradka, hadday tahay isimada, hadday tahay mudanayaasheena ku matala golayaasha dowladda dhexe, in dad u yimid reer puntland ah oo u yimid inay danahooda iyo danaha soomaaliya kala dhexeeya ka arrimiyaan si midaysan ayayna waxay uga soo saareen war murtiyeed ay isku raacsan yihiin oo aada la socotaan sida loo soo dhaweeyey sidaan markaba horaba xusay. waxaan kaloo rabaa inaan xuso qodobo ay muuqatay in ayadoo ujeedooyin laga leeyahay la rabay in midab kale loo sameeyo ama la fool xumeeyo. qodobadaas waxaa ka mid ah war murtiyeedku wuxuu xusay markii laga hadlayay arrimaha federaaleynta dalka in dowladda federaalka loogu baaqay inay joojiso faragelinta ay ku hayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, oo tusaale loo soo qaatay dhacdooyin qaarro horey u dhaceen qaarraha haatan taagan yihiin. waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno war-saxaafadeedkan in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaantood ay puntland leeyihiin saaxiib dhow, ay wada yihiin dowladaha xubnaha ka ah ee ka wada shaqaynaya sidii dalkani uu ku yeelan lahaa hanaan dawliya oo federaal ah oo inoo shaqeeya haddii lahayn. kuwa sida gaarka loogu xusay war murtiyeedka oo ay ka mid ahayd galmudug, oo ay ka mid ahayd jubbaland, oo ay ka mid ahayd koonfur galbeed, waa maamul ama dowlado xubna ka ah dowladda federaalka ah oo si dhow ay saaxiibo u yihiin, qaarkoodna deris u yihiin, dana badanna ka wada dhexeeyaan puntland. war murtiyeedku kama hadlin mana soo qaadin danaha gudaha ee dowladahaas xubnaha ka ah dowladda federaalka, laakiin war murtiyeedku wuxuu ka hadlay dowladda dhexe sida khaldan ee marindarrada ah ee u adeegsanayso ciidanka qaranka oo loogu talagalay dadka inuu ka difaaco cadowga, amnigiisana sugo, halkii taa la samayn lahaana sida haatanba ka taagan deegaanada qaarkood oo ay ka mid tahay jubbaland, khaasatan gado sida lagu xusay war murtiyeedka ay dowladdii u isticmaalaysa ciidanka iyadoo cadowga uu fadhiyo xamar wadooyinkiis oo waddooyinkii kala xiran yihiin oo la mari laayahay oo qaraxyadiiyo dagaal ka socdo oo aan afgooya la tegi karin oo aan balcad la tegi karin, in ciidanka inta diyaarado lagu qaado la geeyo jubbaland si khalkhal loogu geliyo amniga iyo dowladnimada ka jidha. arrintaas weeye arrinta uu ka hadlay war murtiyeedku. waxaana rabnaa dadka raba inay iska rogaan eedda oo ay u wareejiyaan meelo kale inaan laga aqbalayn lana ogay inaan xusno. arrinta kale aan rabno inaan war murtiyeedkan war-saxaafadeedkan aanu ku xusno waxaa weeye safarka madaxweynaha oo runtii aan aada uga mahad celinayno dadka reer puntland meelay joogaanba inay aada u ayideen in shir soomaaliyeed ama gogol soomaaliyeed ay puntland dhigto sida ku xusnaa war murtiyeed ka soo baxay shirka caasimadda garowe ee puntland. arrintaas aad baa loo bogaadiyey loona soo dhaweeyey. waxaa jidhay in madaxweynuhu ku dhawaaqay wasiire golaha xukuumadda in madaxweynuhu uu safar ku mari doono caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo caasimadda soomaaliya ee dowladda federaalka saldhigga u ah si loogu sameeyo gogol xaad shirweynuhu ku baaqay inuu ka dhaco dowladduna aqbashay halkan gogasha halkan la dhigay puntland ay dhigtay ee garow ay dhigtay. ma aha safarka madaxweynuhu, waxaan rabnaa inaan caddayno safarka madaxweynuhu inuusan ahayn safar shaqo iyo wada hadal lala gelayo dowladda federaalka, laakiin safarka madaxweynuhu waxa weeye inuu u gogol xaaro gogasha fidsan ee ummadda reer puntland ay fidisay ee dowladduna ay fulinteeda leedahay ee ka ballan qaaday
ee halkan la dhigi doono inuu u gogol xaaro oo uu ku soo dhaweeyo madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka inay yimaadaan gogoshaas oo ay soo ajiibaan laakiin ma ahan in Puntland ay wada hadal kula soo galayso dowladda federaalka xamar sida meelaha qaarkeed loo dhigay waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad u bogaadinaynaa aadna ugu faraxsannahay sida dadka reer Puntland ay shirkaas ugana qayb galeen go'aano dhaxalgalan uga soo saareen una soo dhaweeyeen intii aan shirka joogin haatanna meel walba ay ka socoto farxad iyo bogaadin shirkaas la bogaadinayo annagana sidii madaxweynuhu halkan buu kaga dhawaaqay khamiistii shirki golaha kadib waxaan ballan qaadaynaa haddii ilahayn in go'aanadii ka soo baxay shirkaas oo aan wax laga bedelin oo aan midab kale loo samayn inaanu sida ay tahay u hirgelin hadday ahaan lahayd wixii tabarteena haddii ilahayn hadday ahaan lahayd kuwa quseeya gudaha Puntland iyo hadday ahaan lahayd kuwa Soomaaliya ina kala dhexeeyaba waxaan ku shaqaynaynaa shirka wixii loo qabtay waxay ahayd ummadda reer Puntland inay isu timaado aayaheedana ka taliso shirkaasna ka soo saarto go'aano dhaxalgal ilaahay waa mahad iskale in go'aanadaas inoo soo baxeen dowladduna sida madaxweynuhu ballan qaaday waxaanu haddii ilaahay u howlgeli doonaa sida ay tahay inaanu u fulino dadkuna ay nagula xisaabtamaan oo ay nagu dabagalaan haddii ilaahayadmo annagoo ku dhaadanayna dadka iyo iskaashigooda iyo garab istaagooda waxaanu ku shaqayn doonaa insha allah go'aanadaas aad iyo aad baan u mahadsantihin asalaamu calaykum سعادة وزير waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saamiley baa ku jiray in loogu yeeri doono shir arrintaas saamileyda laftirkeedu waxayna shalay golaha wasiirada oo federaalka iyo xildhibaano hadlayna saamileyda waxay dhaheen kaliya waxaa mandate haysta in shir loogu yeero dowladda dhexe iyo maamulada dalka jira marka bal arrintaas saamileyda ee gurmurteed ku jiray bal bulshada reer Puntland iyo Soomaaliyeed inay u xidhmaan jeclaan aad iyo aad baa mahadsantihiin kelmadda saamiley waxaa laga yaabaa dadka inay ku cusub tahay qaarkood ama fahamkeeda ku cusub tahay waxyaalaha qaarkoodna kalarkii la rabo ama sidii loo dhigaa u dhigmi kadho saamiley waxa way political stakeholderska Soomaaliya waa dadka ay ka go'do talada dalkan inaanu gogol u fidina haddii lahayn aad baan u mahadsantihiin wasiir wax ka soo garoolay waxa sheegtay mas'uuliyiinta ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya inaysan go'aan idinku lahayn idinkeena idinku matalaya ma xukuumadda oo kaliya baa go'aanka leh marka shirkan go'aamada ka soo baxay aad baa mahadsan tahay arrintan ka hadalay waxa weeye dadka lagu casuumay shirka waxay ahaayeen dad u siman aan mudnaan gaarana kala lahayn ayagoo dhan ay u taalay inay ka arrimiyaan kana taliyaan qodobadii miiska saaraa ee looga hadlayay aayaha iyo mustaqbalka Puntland ciddii ka timid federaalka iyo ciddii ka timid gudaha Puntland tala siman bay u lahaayeen waxaad la socotaan maalin dhan ayaa waxaa lagu shaqaynayay si guruba ah oo siyaasiyiintu shaqaynaysay golayaashu shaqaynayeen isimadu shaqaynayeen cid walba shaqaynaysay wixii ka soo baxayna way wax meesha la keenay waa mahadsantihiin wasiir su-aasha ugu dambeysaan rabay inaan ku weydiiyo waxaa weeye magacayga waa Ibraahim Wadani waxaan ka socdaa tiyaatar golihii wasiirada qaybta Garowe joogta ee shirka ka qayb galay shir saxaafadeedkoodii waxaa qayb ka ahaa in ay ku jireen meesha qodobo aysan dadkii ka soo qayb galay shirka aysan ogeyn oo muxuu ahaa idinku jeebkiina ka keensateen taa maxaad uga jawaabaysaa aad iyo aad baa mahadsantihiin taas waxaan rajaynayaa reer Puntland baa ka jawaabi doona annagu wixii reer Puntland ay ka taliyeen oo ka soo saareen meesha oo iyagu ay goobjoog ka ahaayeen oo hortooda laga akhriyey oo si gaar ah loogu akhriyey oo la isla qaatay ayaanu hirgelin doonaa gacantana loo taagay halkan golaha xukuumadda iyo gobollada iyo degmooyinkiiba gacanta u taageen in shirkaas wixii ka soo baxay aanu fulina haddii la ahaydno wixii ka soo baxayna waynu wada joognay saxaafadduna waa joogtay markii la akrinahayay group kasta minuteski ama wixii ka soo baxay markii la bandhigay saxaafadduna waa joogtay marka aad iyo aad baa mahadsantihiin بس وانا مات وانا ما يصير golaha wasiirada qayb ka mid ah Puntland oo shir saxaafadeed qabtay ay ahaayeen kuwaasi oo ay ka hadlayeen arrimihii shirka iyo go'aamadii ka soo baxay qodobadii ay soo saareen wasiiradii dowladda federaalka ka socday oo shalayto shir saxaafadeed soo qabtay kuwaasi oo qodobo uga hadlay taasoo sababtay in Puntland ay arrintaas ka jawaabto waa idin salaameynaa bahda theater production. Assalaamu calaykum.